السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa Cream Trading Official. insha Allah waxay noo socday course-keeni aynu ku baraynay FX trading-ka ama forex trading-ka gaar ahaan waxa loo yaqaano institutional concepts. maanta waxaynu ka hadli doonaa runtii mowduuc la yaqaano price action-ka ama runtii xarakaadka suuqa loo yaqaano ayaynu insha Allah isla fasiri doonaa practical-kiisana insha Allah sameyn doonaa. price action-ka kulley waxyaabo badan oo runtii muhiim ah ayaa jira marka la baranayo oo suuqa loo baahan yahay inuu qofku fahansanaado. haddii aynu horti macnayno Soomaali ahaan wuxuu noqonayaa xarakaadka ama dhaqdhaqaaqa uu runtii sameynayo suuqa sameynayana waa suuqa candlestickskiisa baa sameynaya. haddii aynu fasirno waxay noqonaysaa akhrinta dhaqdhaqaaqa shumacyada iyo fahankooda ayaa loo yaqaan runtii price action. waana halka aad ka ogaan karto institutional tradersku ujeedooyinka ay leeyihiin ama waxyaabaha ay damacsan yihiin saacadaha iyo maalmaha soo socda. waxaad ka dhex ogaan kartaa adigoo markaasi fiirinaya candlestickskan iyo chartkan ku hor yaala ayaad ka dhex ogaan kartaa waxa ay damacsan yihiin in ay tahay kor iyo inay tahay hoos. waxaad ka dhex ogaan kartaa labadaasba waxaad ka dhex ogaan kartaa adigoo fiirinaya price actionka ama xarakaadka suuqa. haddaba halkan waxaan runtii kusoo qoranay MB oo aynu ga jeedno note oo runtii muhiim inoo ah. waxay muhiim inoogu tahay course-kan aynu qaadanayno maadaama institutional concept aynu nidhawaynu baranaynaa ama ardayga course-kan qaadanaya waxaynu ugu talagalnay ma aha course aynu kaga hadli doono candlesku sida ay u sameysmaan, ma aha cashar aynu kaga hadli doono sida maxay ahaydey loo yaqaano ama magacyada ay leeyihiin iyo waxyaabaha loo kala bixiyo sida engulfing iyo hammer iyo macna rejection ma baran doono. runtii waxaynu baran doonaa ujeedooyin ka guda ballaaran ayaynu baran doonaa. ardaygu haddii aanu soo baran candleku sida uu sameysmo iyo sidoo kale magacyada candleska iyo waxyaabahaas dib waa inuu noqdo oo uu soo dhigto course-kan runtii ka hooseeya. okay, 3 xeer ayaynu insha Allah baran doonaa oo ah xeerarka ay ku base gareysan tahay wax loo yaqaano price action-ku. xeerka koowaad aynu baran doono waxa uu noqon doonaa haddii aad aragto candleska oo sameysanaya weeks dhaadheer waxa ka dambeeya 3 ujeedo midkood. waxaynu nidhi haddii uu qofku arko candleska oo sameysanaya weeks dhaadheer waxa ka dambeeya 3 ujeedo ama 3 arrimood midkood ayaad runtii aad ogaanaysaa in ay halkaasi tahay. kow, in ay jiraan arrimo dhaqaale oo dalkaasi ay wax iska bedeleen xaaladii dalkaasi ku jiray. waxaynu nidhi in ay jiraan arrimo dhaqaale ama dhaqdhaqaaqa oo dalkaas dhaqaalihiisii ay wax iska bedeleen. 2, in aad aragtid baan ku yidhi institutional tradersku in ay fursadahoodii suuqa kala baxeen ama faa'iidadoodii ay suuqa kala baxeen. oo macnaheedu tahay haddii suuqa institutionska ka baxaan adiga runtii waxba kuma yeelan adna waa inaad traderskaaga xirato oo shandadaadii la laabato. iyo sidoo kale qodobka saddexaad haddii aad aragto nooca candleskaasa in ay meeshaasi tahay waxa loo yaqaano liquidity line ama waxa loo yaqaano xariiqda halista ah. tusaalaha aynu qaadano markaasi sawirkan waxaynu soo qaadanay in aynu tusaalaha inoo noqdo. hadda sawirkan u fiirsato maxaad arkaysaa waxaynu weekiskan ka hadlaynaa horti waa kuwa weekiskan ka hadlaynaa. weekiskan ayaa loo yaqaanaa weekis macna weekis san u dhaadheer haddaad aragto ayaynu ka hadlaynaa. haddii aad aragto weekiskan u dhaadheer waxa ka dambeeya ayaynu 3 ujeedo candles weekis dhaadheer sameysanaya. haddaad aragto 3 ujeedo ayaa ka dambeeya. kow, in dalka xaaladii dhaqaale uu ku jiray oo hoos u socotay ay wax iska bedeleen oo suuqii lacagtiisi kor u kacayso. 2, in xaaladii suuqa in ay sidoo kale halkaasi ay institutional traderskii halkan suuqa ka soo galay ay ka baxeen. maadaama ay ka baxaan suuqii muxuu sameynayaa dee uu kala jeesanaya. qodobka saddexaadna inay meeshan ku beegan tahay waxa loo yaqaano liquidity oo halkan ay liquidity tahay oo la doonayo in mitigation lagu dhufto. 3 qodob ayaa runtii ka dambeeya. bal tusaalihiisana insha Allah waynu isleegi doonaa oo waxaynu ka fiirin doonaa in ay lacaguhu sameynayaan. bal candleska aynu ka hadlaynaa waa kuwe candleska aynu ka hadlaynaa runtii waxa weeyaan candleska sida tana u sameynaya weekiska sida tana candleska weeka u sameynaya. markaad aragtid candleska runtii sida tana weeka u sameynaya ayaad leedahay waxa loo yaqaanaa week dheer macna candleska weekiska dhaadheer sameynaya ayaad ku ogaanaysaa in xaaladii dalku ay wax iska bedeleen ama arrimo dhaqaale oo isbedelay runtii ay jiraan. okay, tusaale halkaas si fiican baynu eegaynaa. halka kana u fiirso maxaad arkaysaa waa week.
maadaama weekiskani waxay leeyihiin ujeedo iyo sir runtii koos jirta oo kaa gadaaman waa inaanu kuugu muuqano qura rejection aanu kuugu muuqan lasoo rejection gareeyey ama waa inaanu kuugu muuqano qura price action waa inuu aad macnihiisa oo rasmiya aad runtii fahmi karaysaa haddaynu xagga kana u soconno xagga kana haddaynu runtii usii soconno waxaynu arkaynaa suuqa kana u fiirso this is rejection waa price action laakiin ujeedada laga leeyahay waa maxay saddex midkood ayuu ahaa in lacagtii kor u kacaysa ee suuqu maalintii halkaa maraysay lacagtii kor usoo socotay muddada badan korka usoo socotay candleska xooga waaweyn ay kusoo jireen saddex midkood baa ku dhacay kow in halkan ay dalkii dhaqaalihiisi wax iska bedeleen oo uu ku yimi dhaqaale in ay dhaqaalihiisu hoos u dhaco laba in ay timi institutional traderskii bartan ka soo galay ay meeshii ka baxeen inay meeshii ka baxeen oo lacagtoodii ka xidhanayaan lacagtooda hadday ka xidhaanna maxaa meeshii imanaysa suuqi uu kala wareegaya iyo inay meeshani kuwa beegan tahay wax loo yaqaano xariiqda halista ah oo iyadana insha allah sida la isku waafajiya aynu baran doono oo ah in suuqa laga rejection gareeyo hadhow mitigation lagu dhufan doono hadhow mitigation lagu dhufan doono another examples baynu eegaynaa halka kana maxaa ku jira sidoo kale halkan kana mid baa ku jira haddaad u fiirsato maxaad arkaysaa week dheer baad arkaysaa weekani muxuu kuu sheegayaa waa price action kana ujeedadiisu waa maxay waxaynu sheegnay in ay saddexda ujeedo mid ka midi ka dambayso haddaad maanta o dhan baadho waxaad helaysaa more confirmations ayaad helaysaa macnaheeduna saddexda ujeedo ayay soo hoosgelin haddaad aragto candles runtii saa u dhaadheer oo price actionka kuu samaynaya saddexda midkood ayuunbaad eegaysaa ka uu yahay okay halka kana maxaad ku arkaysaa rejection dheer ayaad runtii ku arkaysaa rejection dheer ayaad ku arkaysaa rejection ka dheer muxuu aniga caawinayay wuxuu ka caawinayay adigoo istiraatiijiyadaadii systemka kale isticmaalaya inaad hadhow tolo aqoonsatid waxa uu taagan yahay saddexda concept keebuu taagan yahay okay qodobka labaad ee aynu sheegnay ama qodobka labaad ee price actionka uu inoo sheegi karo waxaa jira xeer labaad oo isagana jira oo loo yaqaano runtii in aad aragtid candleska oo buuxa oo samaysanayn wax loo yaqaano week haba yaraatay waa candleskii halkii markii hore candleka bodigiisu yaraa weeku dheeraa hadda maxaa weynaanaya bodigii candleka ayaa weynaanaya weekina wuxuu noqonayaa runtii wax yar oo naqan ayuu noqonayaa markii sidaasi dhacdana waxaa ka dambeeya iyadana laba ujeedo oo qura waxaa ka dambeeya laba arrimood oo qura ayaa ka dambeeya halkaasi runtii waa laba arrimood oo qura ayaa ka dambeeya marka waxa loo yaqaano haddaad aragto xeerka loo yaqaano candleska waaweyn laba ujeedo ayaa runtii ka dambeeya labada ujeedo ee ka dambeeya maxay yihiin kow in ay institutional traders halkaa ka fureen fursado cusub waxaynu nidhi in halkaa ay candleskaasi ka bilowdeen ay institutions ka fureen fursado cusub oo la doonayo adigoo systemkaaga iyo istiraatiijiyadaada isticmaalaya inaad tradeka la raacdid oo ilaa iyo ay ka baxayaan aad kula jirtid iyo in suuqu uu samaysanayo xeer loo yaqaano divergency ama benguur oo macnaheedu yahay in suuqa loo yaro kaxeeyo directionkii uu markii hore u jeeday mid aan ahayn oo macnaa benguur lagu yaro sameeyo si hadhow toole SL-ka lagaaga dhufto labada xeerna waynu isla eegi doonaa candleska aynu ka hadlaynaa waa kuwe waa candleska sida tan u burburan markaad aragto runtii waxa weeyaan laba ujeedo midkood weeyaan waa laba ujeedo midkood in suuqu baygii uu saxa uu aadayo ama sel saxa uu aadayo iyo in ay tahay benguur oo la doonayo inaad geshido kadibna lagugu soo kala jeesto iyadana insha Allah loo kala habeeyo waynu baranaynaa candleska aynu ka hadlaynaa hortii waa kuwe candleska aynu ka hadlaynaa runtii waa kuwa sida tan u quruxda badan waa candleska sida tan u quruxda badan candleskan waaweyn haddaad aragto candleska sida tan u waaweyn waxaad ogaanaysaa in halkaas ay institutions ka fureen trade inay halkaas institutions ka fureen trade sidoo kale halka kan aad arkaysaa candles waaweyn oo qurux badan ayaad arkaysaa waxaa loo yaqaanaa institutional candles ayaa loo yaqaanaa institutional candles waana candleska la doonayo runtii inaad trade gareysid waana candles runtii aad u faa'iido badan markaad aragtid nooca candleskaasa waxaa loo yaqaanaa institutional candles ayaa loo yaqaanaa waana candles laba ujeedo leh maxaynu sheegnay kow in way suuqa halkaa ka galeen strong institutions oo la doonayo inaad la qabsatid qodob labaad oo sikradaa jira oo ah in ay samaynayaan wax loo yaqaano benguurka maxaynu uga jeednaa waxaynu uga jeednaa tusaale ahaan halka kan haddaad u fiirsato suuqa kan haddaad u fiirsato waxaad arkaysaa halkan haddaad u fiirsato runtii suuqani muxuu kusoo socday down trend ayuu muddooyinkii u dambeeyey kusoo socday mararka qaarkood waxay iman doontaa in sida tan oo kale lagu sameeyo 3 kandhal 4 kandhal waaweyn afarta kandhal ee waaweyni waa benguur waxaa la doonayaa inaad bayda aad u raacdo kadibna SL-ka lagaaga dhufto waxay abuuri doonaa sharci loo yaqaano divergency oo macnaheedu yahay halka uu suuqu ka abuurayo uptrend hadda inta yar u fiirsato waa maxay waa uptrend yar
ayaa indicator aynu xagga dambe kaga soo dirsan doonaa uu inoo samayn doonaa isagu downtrend oo kala duwanaansho uu inoo muujin doono oo macnaheedu yahay indicatorka hadda run sheegaya price-ka suuquna been ayuu sheegaya price-ka suuquna been ayuu hadda sheegaya oo divergency ayaa loo yaqaanaa labada qodob ayaa labada qodob ee samaysma haddaad aragto candles runtiisa u waaweyn waxa ku hoos jiraaba secret kale maaha waa labada qodob waa in suuqu uu samaynayo divergency iyo in uu suuqu samaynayo waxa loo yaqaano runtii institutional traders ayaga traderka furan oo la doonayo inaad la qabsato danaga xeerka saddexaad isaguna runtii waa xeer aad u fudud waa xeer aad arkaysid in ay suuqii samaysmayaan shumacyo si isgarab yaala oo aan jiha haba yaraatee lahayn iyadana insha Allah laba ujeedo ayaa ka dambeeya waxa samaysmaya shumacyo sida tan oo kale shumacyo sida tan oo kale ah samaysmaya hadda u fiirsato runtii waa shumacyo maxaya way isgarab yaalaan consolidation ayaa loo yaqaan ranging ma ranging waa suuqa sida tan u socda isagu waa suuq la trade gareeyo waa suuq sax laakiin consolidation ku waa candleska sida tan isku garab yaala aan awood lahayn ayaa loo yaqaan consolidation iyadana haddaad aragto waxa loo qarsoon ama ujeedooyinka ku qarsoon waa laba arrimood midkood labada arrimood maxay yihiin labada arrimood ee ku qarsoon runtii waa laba arrimood aad u fudud waa in ay meeshaas suuqu uu hadda ku jiro ay ka jiro wax loo yaqaano accumulation distribution phase oo aynu baran doono insha Allah gaarkeedana u baran doono oo macnaheedu tahay suuqu wuxuu ururinayaa orders ka macna lacagta trade suu u dhaqaaqo waa inuu orders ururiyo dad galaan markay dad galaan ayaa trade-ka la dhaqaajinaya waxa loo yaqaano accumulation phase ama distribution phase buu ku jira suuqaasi laba waa in ay institutional traders ku ka dimacsan yihiin ajada qarsoon oo la xiriira dhacdo wareed soo baxayso oo suuqa lagu celceliyo meel cayiman suuqii oo uptrend ugu soo socday ayaa lacagtan waxa ka soo baxaya news ka soo baxaya traders ko waaweyn iyagoo sugaya ayay doonayaan in suuqii halka kana ku hayaan oo halkan consolidation ka galiyaan si hadhow news ko hadii information kii trendiga uu raaco ay uga qaataan trade-kii isla meeshii uu taagnaa uga sii qaataan ee aan trade-kii oo ka tagay news-kii soo bixin oo aan halka uga sii raacin oo halkan uga raacaan ayaa lagu haynayaa suuqii meel isku dhadhow ama qiimo isku dhadhow ayaa lagu celcelinayaa inta uu news-ku soo baxayo iyaguna sida tan u sameysmaan runtii hadaynu halkan ka fiirino hadda waxaynu arkaynaa easy halkan ayaa ku jiraan waa candleska runtiisa isku garab yaala waa maxay sheegayaan waa labada ujeedo midkood in ay tahay meel suuq uu kaga jiro accumulation distribution phase iyo in sidoo kale ay tahay in dhacdo wareed soo baxayso oo suuqa lagu celiyo price isku dhadhow lagu celceliyo suuqa price isku dhadhow hadda halkan kana u fiirso waxaad inta kan ku arkaysaa suuqa waxa lagu celinayay qiimo isku dhadhow before aan la daadin before aanu suuqu trendigan soo sameyn waxa lagu celcelinayay dhowr saacadood ayaa lagu celcelinayay hadda halkan kana u fiirsato dhowr saacadood ayaa lagu celcelinayay ilaa 9 candle oo isku eeg oo isku same area ayaa la celcelinayay oo 4 hour way loo celcelinayay because dhacdo wareed ayaa soo baxaysay ama information ayaa soo baxay macluumaad ayaa lacagta ka soo baxay that's way ba keenaysa in lacagta qiimo isku dhadhow lagu celceliyo lacagta tan u fiirso before aanu uptrend-ka aadin halkan waxa lagu hayay muddo ayaa lagu celcelinayay halka kana sidoo kale u fiirso maxaa lagu celcelinayay price muxuu sameeyay slack way slack u tahay waxa laga yaabaa in labada ujeedo midkood tahay in lacagta lagu celceliyo si news ka hadhow markuu soo baxo haduu active noqdo ama positive noqdo loo raaco hadii kalena waxa lagu sameeyay accumulation distribution phase ay ku jirtay oo ujeedadaas ay ka qarsooneed ama ujeedadaas ay ku jirtay sidoo kale halka kana ayaa lamida oo tusaalayaasha runtii aad si fiican ugu arkaysaa waa saddex qodob ee runtii price action ka waxaynan doonayn in wixii aynu aragno rejection ama aynu u aragno consolidation oo kale waa inaan wixii laga noqon waa in wax kasta aynu runtii macnaheeda saari karayno waana sababta runtii course-keenani uu noqday course institutional concept oo runtii advance waa inoo insha Allah casharkan xiga intaanu ku kulmi doono. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.